بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد مدن يالي مرويين دمان أخيارت هالكن isugu timid ee u horeeyeen madax dhaqameedka dadweynaha haweenka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad leh ilaah halkan oo muddo badan ay colaadi ka jirtay maanta isugu keenay ilaahay baynu xamdiyeynaa waxaynu leenahay iga daba tiraadaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin waqtigu uu gaaban yahay hala dul qaato intaa yar wasiiraduna way iga dambeeyaan waxaan hadalkayga ku bilaabayaa marka hore waxaanu halkan u nimid muddo u joognay inaynu adkayno nabad wixii dhiman waxyaabihii yaraa intii ka dambaysay dhacana la nabadeeyo meel fiican bay noo maraysaa idinka haddii aad tihiin reer Daraweyne waxaanu idinku nimisalaan iyo inaanu idin mahadnaqno idinka iyo odayaashiinii halkan naga horreeyeyba oo aanu idinka mahadnaqno garashada fiican ee ilaahay idin siiyey ee aad garateen inaad nabadgelyadii dib u soo celisaan oo walaalowdaan oo wada noolaataan oo ilaahay barwaaqada uu idin siiyey aad wada calafsataan waan idin mahadnaqnaa waxaan leenahay ilaahay idinka jisaaysiiyo mar labaadka waxaa runtii lagama maarmaana inaynu isu sheegno nimcada ilaahayna siiyey halkan waxaa laga sheegay markii dagaaladu ka jireen inaanay dhirtano caleentu ka tagtay oo dooggu meesha ka tegey oo nimcada ilaahay meesha ka fayday baa laynoo sheegay oo xooluhu yaraadeen oo mararka qaarkood boorame iyo muxuu ahaayey gabiile laydinka keeni jiray neefneefka wax lagu darsanayo muxuu cuntada markii aan nabaddii xidheen ee qalbigiinni midayseenna quruxdaa aanu ilaa maalmahan ku dhex jirnay ee inoo muuqata wataa ilaahay idinku goglay marka hore waxaan idinku ducaynayaa in ilaahay nimcada idin garasiiyo inaydaan dagaal dambe iyo dhib dambe ku noqon waxyaabaha aad kaga gedisantiin baan idiin sheegayaa gobollada kale reer somalilan marka burco la soo joogo balaadu way dhacdaa dadkuna way dhintaan qaatilkuna waa jiraa gacanku dhiigluhu wuu jiraa laakiin bulshada kale ee idin dhow waxay idinkaga gedisan tahay ilaahay dadka sabab uu sameeyo waa la dhimanayaa inta bani aadamku jiro oo la odhan maayo dhibaata jiri mayso laakiin waxaa laydinkaga wanaagsan yahay gobollada kale marka qaatilku wax dilay ilaahay ku sababo waxaa la yidhaahdaa yaa dilay waxaa la yidhahdaa gacanku dhiigle hebel gacanku dhiiglahaasaa la raadiyaa isagay dawladdu daba gashaa isagaa la qabtaa isagaa ama loo dilaadoo laga qisaasaa wixii u geystay ama muxuu ahaayey eheldamkii baa saamaxo halkaasuu ku nabad galaa waxaase halkan ka jirta oo ayaan darro ah oo badownimo ah oo jahilnimo ah oo islaamnimada ka fog nin qaatiloo walaalkaa dilay oo inaabtigaa dilay oo habaryartaa dilay oo muxuu ahaayey kaa dadka isugu xigteen dilay oo aad qariso oo dhiiggii uu saydhay uu qabiil dhan ku saydhmo oo dabeedna la yidhaahdo yaa wax dilay halkii laga odhanaa gacanku dhiigle hebel reer hebel baa wax la dilay reer hebel baa wax dilay reer hebel ayaa wax miyaanay ma subxaanallah ahayn odayaashii halkan ka hadlaayey dee nin waliba wuxuu ku abtirsanayaa reer hebel maalinta qaatilku wax dilo isna waxa weeyaan waa qaatil odayga waa qaatil waayo reer hebel buu noqday waayo gacanku dhiiglihii baa ka soo jeeda reer hebel ilaahay wuxuu yidhi man qatala mu'minan mutacammidan fajasaa'uhu jahannam ilaahay wuxuu yidhi qofka nin islaama dila isagoo u kasay qaar baa dareeray umala hadalkaasaa dhibay baan u malaynayaa waxaan leeyahay war ninkii halkaa ka baxoo waxaad noqonaysaa dee gacanku dhiigle wuxuu yidhi ninkaa waxaan ilaahay wuxuu yidhi waxaan u diyaargareeyey jahannamaan u diyaargareeyey buuri jahannama ayaan u diyaargareeyey
oo weliba bini aadanka kale iyo islaamka iyo dadka muslimiinta ah qofku markuu dembi galo ee muxuu ahaayey muddo la geliyo waxa la yidhi cadaabta kuma waaree waa laga soo saaraa laakiin ninka qaatilka waa qofka keliya ee la yidhi khaalidan uu ku waaraa jahannamo lagama saaro war markaad ninkii caynka ahaayee ilaahay daba socday markaad guntida geliso ama aad xaynka gelisaan dumarow ee kii daba ordayee ninkaa daba ordayee dawladda ahaa aad ka qariso miyaanad ku darsamaynin kuwaa ilaahay nacdalay ee uu cadhooday ilaahay kuwaa idinkama dhigo inaydaan dib u qarinin daalima oo aanu reer hebel noqdo war rag iyo dumarow ma isku ognahay haddaad tihiin reer darar weyne ma isku ognahay markaasaa nabad helaysaan markaasaa walaalnimadiina soo noqonaysaan markaasaa ummad wada nool oo dunida ku raaxaysata aakhirana kuwaan cadaabta ku waaran ama jannada gala aad ka mid noqonaysaan waxaan hadalkii ku soo gebagabaynayaa in yaroo kaftana degmadu aad bay u wanaagsan tahay waa tii la sheego madaxweynaha waan ku yar dhigo marka waraaqaha loo gelinayo waan ka yar halacsaday degmadanoo waxaa la odhan jiray inta kale wanaagsantahay laakiin magaca waxaan arki jiray hoosta khad yaroo casi ka marsan yahay xagga nabadgelyada marka la eego raggii nooca ahaa ninkii caynkaa halkanoo saaka ka hadlay taas waxay muujinaysaa in khadka casana meesha ka baxayo oo ay nabadda israacday oo degmadu wada sax tahay oo raggii ugu hadal wanaagsanaa ay ka mid ahaayeen waan idiin ducaynayaa waxaan kale ku darayaa kaftankaa beri dhawoodba geel yar baa ii jooga hargeysa berigeeda xawdka waa geel magaalada caanihiisa la keeno $1 buu dhiiqaa sida kan hawdka jooga maaha aad baan u jeclay dabeedna caaqilkii baa yimi wuxuu igu yidhi hal soo saar markaasaan ku dhawaadar beryaha waxa maynaan diline waa maxay hashan mag tahay markaasuu yidhi agoontii darar weyne iyo ceelaf weyn ayaa loo geeyey aniga adar maxaa ii keenay wuxuu yidhi xoolihii ay lahaayeen ayay ku gashi bixi kari waayeen dadkii deegaanka ahaa dabeedna waxaa loo tuugsanayaa si agoonta loo samirsiiyo islaamka kale ee reer somalilan marka agoontiina waxaan filayaa halkaa inay wax ka soo socdaan laakiin waxaan idinka codsanayaa inaydaan dee agoon damba ku darin waan idiin ducaynayaa ilaahay nabadda haynoo adkeeyo ilaahay barwaaqada haynoogu sii wado ilaahay nabadda muxuu ahay boggeenna buracda alla haysu mariyo maradeenna mooye maankeennu isma jiidho idinkuna noolaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu